waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ciidan watay gawaari nooca loo yaqaan tiknikada oo qalabaysan kana soo jeeda beesha koonfurta Sanaag oo iyagu sida fagaaraha laga sheegay markii hore ka soo horjeeday maamulka Soomaaliland iyadoo ciidankan iyo gawaaridoodaba meel durugsan ay kaga hortageen madaxda uu ka mid yahay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland iyo saraakiil kale oo ciidanka qaranka ka tirsan waxaana ciidankaas loo soo galbiyay dhinaca gudaha magaalada Ceerigaabo gaar ahaan guriga ay degan yihiin waftiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo isaga iyo waftigiisu dhalinyaradaas ciidanka ay halka ku qaabileen iyadoo ay goobjoogna ka ahaayeen madaxda heer gobol iyo degmaba ee Ceerigaabo iyo dadweyne kale oo aad u tiro badani waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay ciidankan Maxamed Cabdi Maalik waxa maanta farxad noo ah in ay halkan nagu soo biiraan saraakiil muhiim ah iyo ciidankoodii kuwaas oo ahaa iyaguna u baahnaa inay qarankooda iyo dawladnimadooda ka soo qayb galaan annana aan u baahnayn inay noo yimaadaan oo nagala soo qayb galaan waxaan kaloo declare gareynayaa ciidankan maanta yimi ee ay u horeeyaan saraakiishani madaxna u yihiin waa isdaba socdaa ma aha intan keliya mana aha ciidan la yiraahdo SSC wax la yiraahdo kama jirto halkan ma aha SSC ma naqaan idaacadu baan ka maqalnaa nimankan waa ciidan beeleed mucaarad aha haddana ku soo biiray dalkooda iyo dawladooda taasina waxay cadeynaysaa beesha ay ka soo jeedaan inay nabadgelyada ay dhab ka tahay waxay kaloo cadeynaysaa inay maamulka qaybtooda qaataan inay dhab ka tahay iyagana waanu mahadnaqayaa iyo kuwa kale ee soo socdaba kuwa kalena waanu yeedhayaa walaalayaal waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkiina waan la idinka lahayn waxa iyaguna halka ka hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Axmed Cabdi Xaabsade Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed oo iyaguna ka tirsan xubnaha waftiga wasiirka daaqiliga hogaaminayo waxa isaguna dhinaciisa hadal kooban oo mahadnaqa halka ka yiri Ismaaciil Sultaan Cabdiraxmaan oo hogaaminaya xubno golaha guurtiga ka tirsan oo maalmahan Ceerigaabo ku sugnaa kuwaasoo dhammaantood soo dhaweeyay dhalinyaradan mucaaradka hore ahaa ee maanta u soo galay xukuumadda Soomaaliland si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa u muuqata inay qayb ka tahay isu soo dhawaanshaha hawsha nabadeynta ee waftiga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ay bariyahanba ka wadeen magaalada Ceerigaabo oo dhawaan ay shaqaaqooyin ka dhaceen Cabdullaahi Xuseen